wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabir ayaa waxa uu soo gaaray garoonka caalamiga ah ee Minneapolis St. Paul waxaana garoonka ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota waxgaradka garoonka ku soognaa oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inuu soo gaaro wasiir Jaabir waxayna sheegeen inay u hamuun qabaan inuu uga warbixiyo xaaladda dalka runtii waan ku faraxsanahay in badan dadkaas oo dhan wasiir waan ku soo dhaweynaynaa dadka meeshan taagan waa dadkaagii waan ku faraxsanahay inaad noo timaado waan ku faraxsanahay wadankii warbixin naga siiso waan ku faraxsanahay inaan maxay dhahdaay aynu is aragno insha allahu tacaala aad baan ku soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala shirkaanuna wuxuu noqon doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo jumcaha ku sii wareysanaynaa aad baan uga faraxsanahay soo dhawow maanta waxaan soo dhaweynaynaa wasiirkeena noo imaaday airportka Minneapolis aan taaganahay marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay marka aad soo dhawow magaalada joogta mudan wasiir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaaliyadda reer Minnesota ee ku nool magaalooyinka mataanaha St. Paul iyo Minneapolis waxay maanta si farxad leh u soo dhaweynayaan wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabir waxaan leenahay wasiir soo dhawow jaaliyadii Soomaaliyeed oo maanta halkaan isugu timid gabdhihii iyo wiilashii baa ku soo dhaweynaya haddii ilaahay ku nabad keenay waa maalin farxad leh oon aad u faraxsannahay jaaliyadii Soomaaliyeed oon u kala hadhin oo soo dhaweynaysa wasiir Cabdiraxmaan oo ummadda Soomaaliyeed kule qiimo badan oo maanta annagana farxad noo ah ayaanu soo dhaweynaynaa waxaanu ku leenahay ku soo dhawow annagu waxaanu nahay nabad iyo nolol waxaanu nahay dhalinyaro u istaagtay volunteer iyo dawlad jacayl waana jecelnahay dhalinyaro idinkoo kale oo na hogaamisa oo nagu hogaamisa meesha aan raadinayno waana farxad bayna ii tahay maanta anigu jaanis haddaan u helay inaan kula kulmo aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa maanta hartee maaragtay inuu noo yimid wasiiru dawlaheennii aad baan ugu faraxsannahay annagoo dhanna waa soo dhaweynaynaa ugu dambeyntii wasiir Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee ay u sameeyeen isagoo sheegay inuu dalka uga warrami doono maalinta Jimcaha ee foodan ugu soo haysa jaaliyaddeena sharafta leh run ahaantii waxa ay ahayd maalin aad u weyn inaan idin imaado anigoo ka soo kicitimay dalkii oo soo aaday inaan jaaliyadda halkaan isxukuray samaysano runtii sharafay ii tahay inaad airportka igu timaadaan igu soo dhaweysaan sharafay ii tahay inaan maanta halkaan ku kulanno waxa weeye hadalladii qiimaha badnaa oo dadka walaalaha halkaan ay ka jeediyeen oo jaaliyadda runtii waxayna dhiirigelinaysaa mar walbo aan aragno ummad Soomaaliyeed oo u taagan in dalkeena Soomaaliyeed uu dhismo runtii maanta waa maalin runtii soo dhaweyna aad u soo dhaweyseen ma aha inaanay kaliya soo dhaweyseen qaranka Soomaaliyeed soo dhaweyseen calanka Soomaaliyeed soo dhaweyseen qof walbana waxaa la rabaa meel kastoo la joogo in dadka calankeena wata in saa loo ixtiraamo loo sharfo waxaan rajaynayaa inaan is waraysan doono hadduu ilaahay yiraahdo dalkii aan idinka warrami doono waxbarashada dalka aan ka warrami doono horumarka dalka aan ka warrami doono wixii talooyin aad haysaana insha allahu tacaala waa idinka qaadi doonaa waa mahadsantihiin Dakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka